maalin shalay ahayd waxaa kulan sagootina loogu sameeyay magaalada Muqdisho mid kamid ah ciyaartoyda ku nool degmada Yaaqshiid. Ciyaaryahan Yunis Maxamed Cusmaan ayaa kulankan sagootinta loo sameeyay isagoo kamid ah xidigii ka soo muuqday tartankii degmooyinka ee deegaanada gobolka Banaadir isagoo markaas matalay degmada Hilowa. Ciyaarta ayaa waxay ka dhacday garoonka Blue Stadium ee ku yaala degmada Dharkiile waxaana ka soo muuqday shakhsiyaadka loogu dambeeyo dabaaldega cajiibka ah sida Falembe iyo Face to Face kuwaasoo bandhig ilqabad leh ku soo bandhigay kulan ciyaareedkani. labada kooxood ee ku ciyaaraya garoonka waxay ku kala suntanaayeen magacyada Team Falembo iyo Team Face to Face. kulanka ayaana ku soo dhamaaday barbadhac 3 gool. ciyaarta markay soo dhamaatay waxa gool FM la hadlay ciyaartoyda labada dhinac iyo qaar kamid ah taageerayaasha u soo daawasho tagay ciyaartani. aad u maasantahay waan ku dhownahay gamekan wuxuu noo ahay martigeliyeen Blue Stadium garoonka Blue Stadium waxaana taabageliyay Asal Express xawaalada qarniga ah. marka wallahi galabta dareenkeena iyo shucuurteena lama soo koobi karin. wallahi aniga inaan gool dhalin xogaa dadkii waa ku dhagan yihiin arintaas lagu haystaa. marka kale Ronaldo iyo Messi in la barbar dhiga camle naqatay u aragtay sababtoo Ronaldo iyo Messi disi gool dhalin xogaa idaacadaha waa ku dhagan yihiin. marka kale waxaan isleeyahay marka ayaantan baraha bulshada way haysan doonaa maadaama aan gool dhalin dhibka waxa jiraan xogaa ayaantan injury ku maqlay. marka soo kabasho xogaa dhaawac jir ahaaneeda jiray. marka insha Allah kale waa loo jeedaa dhaqdhaqaaqayga iyo xawaareyga iyo masaafadeyda kubadaas oo control marka raaciskayga waa badnay marka qaarna goolshi adoo umtaqaana tagay sidaan gool dhalin karin. marka goolka galabta ii diiday marka aniga goolka ma diidin goolka galabta ii diiday. marka kulankan waa kulan saxtirma laakiin aad la isku mariyay bool bare dadku waxay u duwanaa waxa waaye ciyaarta waa la istaajinaa celebrationada hadda xogaa cawada inaad arkaysid inaad soo qaadanaa cashaar dhigana waxa la cunaa waa kulan face to face liiraado waana kulan saxtirma laakiin ka duwan kulamada kale waana la isku adkeynaa waxa waaye qof lideeyahay malan qof walba bool bare waxa aragtay kulan hore ka jir waa garoonka Olympic Stadium ee degmada Yaaqshiid oo caan ay ku tahay oo caawo kale qofkii raba aan leenahay caawo kale 2 saac iyo bar aan la dheelaa si serious ah loo dheelaa. maanta kulanka qabow iska ahay waa arkayda dadka waa la wada dheelisiyo macnaha kulan fani oo iska ahay marka xagga uu ka adag caawa la isku dhigaalsanay macnaha hubka culus oo dhan caawa la isku dhigaalsanay sida u jeedo banaaniyo darsin bool bira 12 xabo in la isku dhameeyo sahal ma wax sahal ma tan waa ciyaar xamaasad leh inkastoo hadda aniga garoon ka maqnaa muddo ka maqnaa oo jilibka laga hayay hadda waa soo laabtay marka alxamdulillah wallahi goolka dhaliyay ila aniga gool migu horeeyo ila goolka dhaliyay muddo aan sugayay oo dhaawac jilibka iga hayay alxamdulillah waa ku maasiin kooxdaysi garab istaagsiin inkastoo walaalkii oo maadcelinaa taageero noo yahay taageereen khaaska waaye walaalkii meel walba oo joogo waa la joognaa anaga aad waa ku dhawahay gool FM waa ku dhawahay abtaxnaan aad u maasan tahay ciyaartan quruxda badan ayaa mar walba daawadeeda kamid ahay aniga iyo asxaabtan inta badan kalama dheerin waxaan nahay walaalo kalama dheerin meel aan u kala tagnina ma lahan meel aan uga harna ma lahan aniga waliba kamid dadka oo naafada laakiin saaxiibadii ma bay dareensiiyaan inaan naafa ahay aad ugu faraxsanahay taas adigina aad u maasan tahay taageerada ayaa xafeed waragahan waxa waaye wiligeen baa isla joognay ilaa yararaanta waa isla joogay marka aad ugu faraxsanahay tiimkayga wallahi aniga kabtankayga Ismaaciil Falembo mar walba waxa saaxiib dhiirigeliya waaye Ismaaciil Falembo dadkii inta badan waxa waaye ciyaaro bisay ku bartay laakiin aad u qalbi fiican waaye marka runta ka hadlo. sidoo kale Yunis Maxamed Cusmaan ayaa dareenkiisa ka hadlay kulanka sagootinta ay u sameeyeen saaxiibadiisa isagoo sheegay inuu aad ugu xun yahay inuu ka tago saaxiibadiisa qiimaha badan. magacaygu waa ku dhawaad magacaygu waa Yunis Maxamed Cusmaan oo ku magac dheeriyo wallahi qalbiga ka dareemay maantay saaxiibadii aan waqtigood badan isla soo qaadan yaraantii laad isla dheelina ka tagaya waliba kulan weyn oo habeen kasta ku xisaabtami jiray caloosha igu xumeyn sida isagootiin ayagana waan ka dareemay marka aad ugu faraxsanahay inaan waqtigan quruxda badan meesha ku qaatay. si walba haatee kulan ciyaareedka waxaa soo daawasho tagay taageerayaal fara badan kuwaas oo kala taabacsanaa labada kooxood ee Team Falembo iyo Team Face to Face.